Dulka waxaa ka bacaya dhacdooyin yaab leh. Aadamuhu wuu ilaaway sida loo duulo dayaxa. Howlgalka Artemis II wuxuu ku wareejiyey 4 astronaut dayaxa. Maxaa cusub duulimaadkan hawada? Waxba. Badankiinina weli madalan marka astronautskii ugu horreeyay ay u duuleen dayaxa. Sanadkii 1993 saddex qof ayaa ku wareegay dayaxa. Mashruucu wuxuu ahaa Apollo Tahana. 20kii sano ee la soo dhaafay, dadka ayaa dib u soo celiyey waxa hore loo sameeyey. Waqtigii hore, aadanuhu si aadah ayuu u barnayay dayaxa. Sanadii 1990 bishiiba mishiin ayaa dayaxa u duulay. Mararka qaar 10 duulimaad ayaa sanad gudaheed dhacay. Saldhigyada otomaatiga ah ayaa ku wareegayay dayaxa. Mashiinadu waxay ku degeen dusha dayaxa. Robotku waxay sameeyeen jabiraado badan. In ka badan 100 hawlgal otomaatig ah ayaa horay u baaray meerahan si qoto dheer. Aadamuhu wuxuu dayaxa ku weeraray sida nolosha dulka ay uga xiran tahay. Ilaa maanta, dayaxa si dhab ah ayaa loogu fidiyaa burburka mishiinada iyo saldhigyada shaqeeya. Dayaxa qabriga ugu qaalisan ee robots. Tan iyo markii ay bilaabmeen duulimaadyadii koonkan, bini'aadamku waxay ururiyeen xog aad u badan. Cilmiga wuxuu si fiican u yaqaan xaaladaha ku heeran dayaxa, agagaarka dayaxa iyo wadada loo maro dayaxa. Cilmi baarayaashu waxay horay u sheegeen qorshayaasha mustaqbalka ee saldhigyada dayaxa, kuwaas oo ah telescopes awood leh oo lagu rakibi doono dayaxa. Sida ay u noqon doonaan agab cusub oo lagu soo saaro xaaladaha jafijido hooseeya ee dayaxa. Sida dayaxa u noqon doona xarun gaadiid oo loogu talagalay sahminta meerayaasha kale. Wax walba waa la diyaariyey. Roketada, maraakiibta hawada, darka hawada, nidaamyada nolosha, isgaarsiinta iyo teknoolojiyadaha kale. Laakiin markaas, duulimaadyadii dayaxa si lama filaan ah ayaa loo joojiyey, iyadoo aan wax sharaxaad ah la bixin, taasoo keentay in muddo dheer la ilaawo dayaxa. Waxaa la joojiyey in la diro qalabka otomaatiga ah ee dayaxa, sida haddii bini'aadamku uu ku ciyaaray oo uu ka daalay, dayaxana uu noqday mid aan xiiso lahayn. Mashruucyada dayaxa waa la dayakay sida cilmo oo ka daalay ciyaar. Maanta, xiisaha dayaxa ayaa dib u soo noqday, laakiin waxay u muuqataa in saynisyahanada iyo injineerada casriga ah ay si lama filaan ah u ilaabeen wax walba oo ay horay u yaqaaneen iyo waxa ay samayn jireen. Maxay u tahay in la sameeyo rokad cusub oo Space Launch System ah? Horay waxaa jiray rokad Shajiba oo Saturn ham ah. Rokadku si guul leh ayuu dadka ugu qaaday dayaxa. Maanta waxaan ku qaadnaa astronaatyada iyo alaabta xarunta caalamiga ah ee hawada sare, markabyo la sameeyey sanadihii 1990. Waxay si fiican u qabtaan. Naqshadu waxay gaartay heer aad u sareeya oo qarsooni leh. Maxay u tahay in la ururiyo rokad cusub oo ka samaysan qaybo ka mid ah Space Shuttle? Werner von Braun wuxuu dhisay rokadkiisa weyn ee Saturn 5 sano gudaheed. Von Braun ma hayn xitaa calculator. Waxa uu haystay Schulman iyo qiyaas. 5 sano kadib, rokad xoog leh ayaa ku qaylinayay miiska bilowga, isagoo tuuraya qulqulka dabka. Space Launch System waxaa la sameeyey 10 sano. Waxaa la isku xidhay naqshad cusub oo la sheegay inay ka samaysan tahay qaybo ka mid ah Space Shuttle. Waxaa lagu xisaabtamay kombiyuutarro aad u awood badan. Waxayna si joogto ah u faafayeen waqtiga diyaarinta. Horumarinta Space Launch System waxay ku kacday miisaaniyadda dawlad yar. Ugu dambeyntiina, aadanuhu wax cusub ma helin. Waxaa la soo celiyey waxa hore loo gaaray. Hawlgalkii hore ee Artemis I wuxuu ahaa talaabo kale oo aan jacdi ahayn oo dib u noqoshada ah. Tani waxay ahayd duulimaad aan duuliyaha lahayn. Markabku wuxuu ku wareegay dayaxa, wuxuuna ku soo laabtay Vulka. Markabka waxaa ku jiray mannequins ku labisan jaakadaha difaaca. Gudaha Dollskan waxaa lagu qariyey tiro badan oo dareemayaal ah si loo jabiro shujaaca iyo julaysyada. Sida haddii aan weli hubin in bini'aadamku ku noolaan doono safar u socda dayaxa iyo dib. Laakiin saamaynta duulimaadka dayaxa ee jidka bini'aadamka ayaa muddo dheer lagu baranayay dad badan. 20 sano ka hor, Cabbaciixa bir qof ayaa tagay dayaxa iyo agagaarkeeda. Dhammaantood way noolaayeen kadib duulimaadka. Qofna ma diman shujaaca. Qaar ka mid ah ayaa weli nool maanta. Tusaale ahaan Buzz Aldrin, qofka labaad ee ku soo dawaaday dayaxa. Nin aad u firfircoon. Maxaa loo diray mannequins ku labisan jaakadaha difaaca? Ma ka baqaynaa shujaaca oo muddo dheer ka hor ahayd mid ammaan ah? Sanadihii alborotcadaha sacameeyadii, adduunku wuxuu ku daganaa shaashadaha madow iyo caddaan. Dadku waxay rumaysnaayeen in dhawaan aan u duuli doono dayaxa fasax. Safar dalxiis oo ku aadan planet kale ayaa u muuqday mustaqbalka dhow.
waxay ka badan tahay nus qarni. laakiin dayax gacmeedku maanta noo yahay sida aan la gaari karin sida dadka qarnigii dhexe. maxaa dhacaya? tani ma ahan horumar. tani waa dib u talinta filim sida Hollywood. dib u qorista sheeko hore oo loogu talagalay daawadayaasha da'da yar, iyadoo lagu darayo saamaynta cusub. runtii taxanaha howlgallada Apollo wuxuu ahaa masraxa. in dadka lagu digo dayaxa waxaa lagu duubay gudaha qol. tani si fiican ayaa looga arki karaa sawirrada rasmiga ah. laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah in duulista dadka dayaxa gebi ahaanba aan loo baahnayn rocket aad u culus. waa yaab. maxaa yeelay markaas ayaa la sameeyaa? su'aashan ayaan u baahanahay inaan ka jawaabno.